duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad 22 bisha maars oo saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa labada duhurnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenani waxaa ka mid ah dadka dalka Talyaaniga ugu dhimanaya coronavirus oo sii kordhaya iyo cudurka oo soo gaaray dalal cusub oo ka tirsan qaaradda Afrika. Reer guuraha ka barakacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii uu ka jabay ceelkii ay biyaha ka cabi jireen. biyala'aan baan ka cabanaynaa biyala'aan aad u adag oo in muddaaba nahaysatay magaaladii waa laga guurayaa dadna waa ka guureen dadna hadday diyaar u yihiin inay meel biyala ka aadaan ganacsatada qaadka ee magaalada Mandheera oo ka cabanaya dhaqaale la'aan soo food saartay. waxaan u mudaharaadaynaa waxaan nahnay dad oo nin walba ilaahay risaqa meel aad u saaray maamooyin oo waxaan nahnay qaad ku korsato jaamacadaha ugu baxda iskuulaha ugu baxda secondary-ga ugu baxda qutulyoonkooda ka raadsad. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenani duhurnimo oo ay soo saartay Samiir Cabdullaahi Jaamacan oo Cabdiraxmaan Xaaji Cabdi ayaa la socodsiinaya balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka idaacadeena duhurnimo iyo Mawlid Xaaji Cabdi oo stuudiyaheena London ka soo tabinaya. mahadsanid Cabdiraxmaan. boqolaal dadka waddanka Hindiya ayaa ku nagaaday guryahooda tani oo jawaab u ah dalabka dowladda ee ku aadanaa xanibaad lagu gulleeyahay in lagula tacaalo isku gudbinta fayraska corona. magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dacallada Hindiya ayaa u muuqda kuwa cidla ah. gaadiidka dadweynaha oo ay ka mid yihiin duulimaadyada gudaha ayaa la hakiyey 14 maalmood oo bandow ah. qadadka tareenada Hindiya oo caadiyan maalintii daabula 25 milyan oo qof ayaa daboolka ka qaaday inay baajiyeen dhammaanba adeegyadii socotada ilaa iyo dhammaadka bishan. Rwanda ayaa lagu soo rogay tallaabooyin adag taasi oo jawaab u ah faafitaanka fayraska. waxaa ka mid ah arrimaha la qaaday xiritaanka dhammaan xuduudaha iyo in dadku ay iskaga sodcaalaan gudaha dalkaasi. maqaayadaha suuqyada iyo dukaamada ayaa la xiray aanse ka ahayn kuwa iibiya waxyaabaha daruuriga ah. badii dadka shaqeeya ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan. Ghana waxay ku dhawaaqday inay xiri doonto dhammaan xadadkeeda waxaana la fasaxay gawaarida xamuulka iyadoo qorshahani uu dhaqan galayo caawa saqda dhexe. dhowr wadan oo Afrika ku yaal ayaa soo wariyay kiisas hor leh waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia iyo Nigeria. dalka Kenya gudoomiye ku-xigeen gobol ayaa la xiray laguna qasbay inuu galo xarun karantiil oo ay dawladdu maamusho kadib markii isaga iyo darawalkiisu ay ka biyo diideen inay galaan karantiil kadib markii laga helay fayraska. hogaamiyaha sare ee dalkaasi Iiraan ayaa geeska geliyey yabooh ka soo yeeray Mareykanka oo ku aadan inuu gacan ka geysto dadaalka dalkiisa ugu jiro la tacaalidda fayraska corona iyadoo Iiraan ay ka mid tahay dalalka uu sida ba'an u halakeeyey fayraska COVID-19. Ayatollah Khamenei ayaa ku nuuxnuuxsaday in Iiraan dhowr mar loo soo jeeday caawimaad laakiin wuxuu carabka ku adkeeyey in taasi ay ahayd wax uu ku sifeeyey la yaab maadaama Mareykanka quddiisa ay dhibaato ka haysato agabka lagula dagaalamo fayraska. wuxuu sheegay in Iiraan ay joogto heer ay uga gudbi karto dhibaatooyinka uu ka mid yahay fayraska corona. halka warkaasi aad kala socotaan waa BBC. nidaamka xabsiyada ee dalkaasi Mareykanka ayaa xaqiijiyey in maxbuuskii ugu horeeyay laga helay fayraska corona. maxbuuska ayaa loo qaaday cusbitaal kadib markii uu ka sheegtay xabad xanuun laakiin waxaa dib loogu soo celiyey jeelka isagoo la geliyey karantiil kadib markii fayraska laga helay. tiro ka mid ah kaniisadaha waaweyn ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa u muuqda inay iska idhatireen codsigii dowladda ee ku aadanaa in la baajiyo isu imaashiyaha diimeed ee xadda iyadoo kordhayo faafitaanka fayraska corona. wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi ee Yonhap ayaa leh boqolaal kaniisadood oo ku yaala dalka daafihiisa ayaa qabtay kulamo diimeed inkastoo hogaamiyaasha kaniisaduhu u sheegeen in dadka cibaadaysanaya ay dhowr mitir isku jirsadaan ayna xirtaan cafufka sanka iyo afka lagu daboosho. ugu dambayntii dhulgariir ayaa ruxay magaalada Zagreb ee caasimadda dalkaasi Croatia kaasi oo waxyeello u geystay dhismayaal dadkana ku qasbay inay u farxadaan wadooyinka. wiil 16 jir ayaa la sheegay in uu dhintay kadib markii uu ku soo dumay dhisme. kooxaha ku takhasusay aqoonta dhulgariirada ayaa sheegay in dhulgariirku uu ahaa mid xooggan isagoo cabirkiisu uu gaarayay in ka badan 4 uuna hoos u galay dhulka ilaa iyo 10 mitir. aan ku celiyay halka ilaa iyo 10 kilomitir. qof goobjoog ah
ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in dhulgariirka uu socday 10 ilbiriqsi waxaana xigtay dabayl xoog leh warkii dunida ayaa intaasi ka eeg aan dib idinkugu celiyo cabdiraxmaan xaaji caddow iyo qaybaha kale ee idaacadda aad buu u mahadsan yahay mawliid xaaji cabdi oo warka idaacaddeena duurnimada la socodsiinaya dhegeystayaal halkaad kala socoteenna waa b b c aynu ku horraynaya sida warkaba aad ku maqlayseen dalka talyaaniga ayaa xayiraad hor leh ku soo rogay gobolka lombardi oo cudurka coronavirus faraha ba'an ku hayo barasaabka gobolkaasi lombardi atilio fontana oo go'aanka ku dhawaaqay wuxuu sheegay in la joojiyey dhammaan goobaha ay shacabka isugu yimaadaan ee aan muhiimka ahayn go'aankan ayaa imanaya xilli uu dalka talyaaniga maalintii shalay oo keliya ay cudurka ugu dhinteen ku dhowaa 800 oo qof qaaradda afrikada barina wadamada uganda iyo eritrea waxaa laga helay kiisaskii ugu horreeyey cudurka iyada oo uu dalka gaana qofkii ugu horreeyey cudurka u geeriyooday samiir cabdulaahi jaamac ayaa wararkii ugu dambeysay inuu hayso haatan stuudiya gula soo biirtay waad mahadsan tahay cabdiraxmaan sidaad sheegaysayba dalka talyaaniga gobolka lambandi ayaa soo rogay xayiraad si loo xakameeyo faafidda covid-19 oo si ba-an dalkaasi fara kulul ugu haya tallaabadan ayaa timid kadib markii shalay oo keliya dalkaasi talyaaniga ay cudurka ugu geeriyoodeen dad ay tiradoodu gaarayso 800 islamarkaana uu soo ritay tirada guud ahaan ee dalkaasi talyaaniga uu cudurka soo ritay waxa ay gaarayaan 4,825 qof waana tiradii ugu badnayd guud ahaan caalamka dalka australia labada magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi oo kala ah Sydney iyo Melbourne ayaa lagu wadaa in uu bandow ka hiirgalo oo 48 saacadood qaadanaya si loo xakameeyo faafidda covid-19 oo haatan kiisas hor leh laga soo sheegay dalkaasi hindiya ayaa dhankeeda waxa ay bandow gelinaysaa dad ka badan 1 bilyan oo qof oo dalkaasi ku nool iyadoo 14 saacadood uu bandowgaasi socon doono si looga hortago faafidda covid-19 ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa shacabkiisa u sheegay in dowladdu ay isku dayeyso in ay xakamayso cudurka islamarkaana ay tijaabiso awoodeeda ay ku xakameyn karto cudurka dhanka afrika dalka Ethiopia waxaa laga helay kiisas cusub oo coronavirus ah taasoo tirada guud ka dhigaysa 11 qof go-aanka Ethiopia ay gaartay ayaa ahaa in 14 maalmood la karantiilo dadka soo galootiga ah ee dibadda uga imaanaya go-aankaasina waxa uu dhaqan geli doonaa saqda dhexe ee caawa Eritrea iyo Uganda ayaa markii ugu horeysay iyaguna waxa ay ku dhawaaqeen kiisas cusub oo covid-19 ah Nigeria 4 kiis oo cusub ayay soo warisay iyadoo dalkaasi tirada guud ay noqonayso 26 kiis oo hor leh Rwanda waxa ay soo rogtay iyaduna bandow oo 14 maalmood soconaya oo ka bilaabanaya saqda dhexe ee caawa si looga hortago faafidda covid-19 ee dalkaasi oo haatan tiradu ay gaarayso 17 qof Ghana waxaa la xaqiijiyey in qofkii ugu horeeyey uu u geeriyoodo cudurka iyadoona kiisaska guud ee dalkaasi Ghana ay gaarayaan 21 qof jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyaduna waxaa la soo warinayaa in kiisasku ay haatan gaareen 30 kiis dalka Liibiya dhinacyada halkaasi ku hardamaya siyaasadda isku diidan ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay samayn doonaan xabad joojin si dadku ay uga foojignaadaan faafitaanka covid-19 halkaas ayay tirooyinka Afrika iyo caalamkaba gaarayaan aad baad mahadsan tahay samiir cabdulaahi jaamac oo la socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ganacsatada qaadka ee magaalada Mandera ayaa cabasho ka muujiyey qaadka la joojiyey magaalada laga joojiyey iyadoo sheegay in markaasi inay noloshooda ku tiirsaneyd ka ganacsiga qaadka waxayna sheegeen inay dowladdu ka dalbanayaan inay il gaar ah ku fiirso dadka danyarta ee la daaladhacayay nolol maalmeedkooda ismaamulka Manderana uu ka joojiyey ka ganacsiga qaadka ismaamulka Mandera ayaa joojiyey qaadka iman jiray magaalada iyagoo sheegay inay go'aankaasi u qaateen si ay uga hortagaan faafitaanka cudurka coronavirus
magacaygu waxaa la dhahaa ruqi haajir waxaan u mudaharaadaynaa waddanka nin walba ilaahay risaqa meelaad u saaray maamooyin iyo ilmahood oo waxaan nahnay qaad ku korsato ilmaha ku korsato jaamacadaha ugula baxda iskuullaha ugula baxda secondary ugula baxda qutulyoonkooda ka raadsad qaadkii oo Kenya aanan la kala xirin oo wax walba ay isu socdaan gawaaradii loorigi maxaa la dhihi jiray xamuulkii baskii nolosha dhan qaadka haddii la xiraaya sababta loo xiraayo waa wax meesha aanan laga sheegin haddii intaad noo imaado asiraa dhibkaas qaadkaa noo keenaya xal aan ka gaarna aan isu imaadna maamiyoonka isu imaadeena aba caafimaadka annagaas noo dan yahay mudaharaadka aan qaadnay xal waaya waa taas calaantaas guduudan greenka aan wata waa ammaan xal ma wadna ammaan aan wadna xal ma wadna magaalada asqaadka ka soo baxa cudurka lagama sheegin midda aad soo galaana cudur laguma sheegin waxaa dhib hoo jira qaadka islaamka qaadka ilmaha lagu biilaa ciidaa lagu biilaa markaan bilaxsaan qaadka noo furdha magacaydu waxaa la dhahaa Carfoon Xasan Cismaan annaga oo mudaharaadayna waxaan u mudaharaadayna annaga qaadan ka shaqeynaa wax kale oo ka shaqeyna ma laha wax kale oo garanayna ma laha qaadkaana ilmaha ku soo korsanay jaamacadda iskuulka ugu baxnaa qaadka hadaa nagala jooji wax aan qabanayna ma laha waxna ma haysano oo qaadkaan annaga aan qutulyoonka ayna ka raadsanayno oo ilmahayna iskuulka ugu baxayna hadaa nagala cayri annaga nin waxna siinaa ma jirto ilaahay ma ogi cabashadayna waxa waa qaadka in nagala joojiyo ma rabna inaan qaadka ayna noola fasaxa oo qaadka ayna dawladda ay noo dayso oo aan rabnaa waxaan mudaharaadaynana dhibna qabsaday waay mudaharaadka wuxuu ka socday annaga qaadaan iska doonanayna maamooyinaan nahay ilmaan leenahay agoon leeyahay jirta dad indhala aa jira rajaa jirta qaadaan raadsanayn intaa soo sanan qaadka ku nooleen 30 sanan qaad gadayni qaadka waxaa mudaharaadka waxaa keenay ciil waan tagnay xafiiska haddaan tagnay wax ilaahay abuuro nagala hoos qaaday male maxaad rabtiin cidna dhahdi male albaab walba waa garaacnay wax naga furaan wayne ciilaan u mudaharaadnay waa sida albaab walba waa garaac wax naga furan male wax nala hadliba male maxaan ku raahdaa ilmaha iskuul looga bixiya dawladda waxaan ka codsanaynaa inay qaadkayna ammaan noo siiso cawada haddaan saan ku galbana dab wax shidanaa male ilmaha waa naga ba'ayeen dawladda day saas ogoshahay hana dhammaysa mudaharaada haddana sidii naga fursan wayso unbay noqonaysaa codadkaasi waxay ahayn qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee magaalada Mandheera oo ka cabanayay qaadka la joojiyay noloshooda ku tiirsanayd halka nagala socotaan waa BBC reer guuraaga degan xadka Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan tuulada Dagob oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya ayaa la sheegayaa inay biyo la'aan halkaasi uga barakaceen dadkan ayaa cabbi jiray ceelbiyood halkaasi ku yaalay oo hadda la sheegayo inuu jabay dadka deegaankaasi ayaana sidoo kale waxaa ka duugmay barkadihii biyaha ay ka cabbi jireen iyagoo markii dambe u qaxay magaalooyin ay ka mid tahay Buursalaaxa oo ka tirsan Puntland haddaba Maxamed Xirsi oo ka mid ah odayaasha magaalada Dagob ayaa dhibaatada biyo la'aanta taagan waxa uga warramay Axmed Cawil Jaamac oo Garowe jooga biyo la'aan baan ka cabanaynaa biyo la'aan aad u adag oo in muddaaba na haysatay magaaladii waa laga guurayaa dadna waa ka guureen dadna hadday diyaar u yihiin inay meel biyo ka aadaan magaaladu waa xagee ka tirsan tahay magaaladu waa Dagob waxay ka tirsan tahay Soomaalida Itoobiya waayahay marka roobabkii dhawaan da'ayay muwaysan qaban roobabka waa qabteen laakiin magaaladu matoor cad bay iska ahayd barkaduhuna waa barkado xabaalan oo waa hore ilaa adigu 50 sano iyo 40 sano ka hor ku siman marka sidaas awgeed matoorkana 3 bilood ka hor buu jabay liisana matoor iska biyo yaroodu iska ahaayo weligiba aan dadka ha qabtireenin miyi iyo magaalada marka intaasaan iyo jirta dhibtiis waa soo kortay adigu si lama filaana bay hadda barkado yari wax yar oo beeshii iyo lagu shubtay oo magaalada barkadahaas jajaban laga soo qaatay baa jiray marka intii yarna way go'day waa dhamaatay oo biyihii waa ka dhamaadeen marka xageebay dadku hadda ay u barakacayaan oo irkanayaan waxay u barakacayaan oo ugu badan meel la yidhaha baabaco oo matoor ka jiro halkaas iyo Bursaalax iyo Laalmadow iyo meeshii uu dadku biyo ugu sokaysan unbay hadda dad ay rabaan inay aadaan haddii ilaahayda dadkii xoolo dhaqatada ahaa dadkan ay awal ay ku tiirsanaayeen iyagu xagee haysteen waxay aadeen waddanka matoor kale bay aadeen wadamada ceelo kale bay aadeen iyo barkadaha biyaha ku jira iyo ceelashaasay aadeen marka dadkii makacdada ahaabaa meesha isugu soo haray waana magaalo qadiima magaaladu oo makacdo badan dad tiro badan uu degan yahay haddana hadde xukunta tuulooyin kale oo ma taqaana ku wareegsan yihiinoo hoos yimaadaan iyaguna qabalayaashaas kale ma gaadsiiseen qayladhaantan dowladda deegaanka oo aad ka tirsan tihiin
hadda asbuuc ka hor waxaanu la kulanay dad mas-uuliyiin aan la kulanay. mas-uuliyiintii mar kasta waxayna yidhahdeen anagu waa ku maqanahay hawshiina dee waa la intii qaylo warma kama tulmaan baan la yidhi dee biyalaan wasa garasa xilli maarsa oo kulul baa la joogaanayo oo dadku qof in biyaha afka lagu hayo ma xaaladdu ay khatarto oo nafdhacda ay khatar loo yahay. sidaas awgeed horta marka u horreysa ilaahay baan baryayna ilaahay roob na siiyo iyo na doonaan. marka xigana dee aamusin mayne wixii ilaahay wax noogu soo dhiibo oo arrinta hadda aad targetka u saaran yahay waxa weeyaan sideedaba ceel in la helo in markaas aan ugaba oonkaan wax badanna soo jiidanayay aan uga baxno oo aan ceel helno baan doonaya. waayahay marka ma la xidhiideen dhinaca puntland oo kale oo ood wadaag aad tihiin tuulooyinka iyo weliba dadka deegaankaas? way jiraan dad ehela oo na soo wacayo oo ka xun runtii biyo la-aanta baahsan oo ka jirta meeshaas. dad ehela way jiraan waxayna noo sheegeen dadkaas dawladahay ku kala nool yihiin iyo dalkaba waxaana dhib oo jira hadda ay leeyihiin ay ku cudurdaaranayaan. dhib baa ka jira adduunkii oo dhan oo laysuma gudbi karo oo lama shaqayn karo oo qof guriga kasoo bixi karaa ma jiro oo dhibaatooyinkaasna waa la sheegayaa oo waxaa kulmay annaga qayladhaantayadii iyo dhibkii adduunkaba ka jiray baa iswaafaqeen. axmed cawil jaamacaad buu u mahadsan yahay. dhinaca facebook cabdiraxmaan dhidic oo jooga cabuud waaqa waxa uu yidhi waan ka xumahay dadkaasi ceelkii ay cabi jireen uu ka jabay. dowlad deegaankana waxaan odhan lahaa buu yidhi dadkaasi u dadaala oo nololii waa biyo mahadsanidin buu yidhi. waa fikirka dhegaystaheena. haddaba iyadoo deegaanada qaar ay dhibaatadaasi biyo la-aanta ay ka jirto ayaa haddana waxaa maanta dunida laga xusaya maalinta biyaha ee adduunka. deegaano badan oo bariga afrika gaar ahaana deegaanada soomaalida ay degto ayaa badana waxa ay wajahaan biyo la-aan ku timaada abaar amaba ceelasha oo jaba. faysal cali xaashi oo bartay cilmiga biyaha iyo fayadhowrka ayaa u waramay samiir cabdulahi jaamac. 1992 March 22keeda ayaa waxaa loo aqoonsaday inay noqoto maalinta la xuso qiimaha biyaha ay bini'aadamka u leeyihiin. taariikhdaasaa la bilaabay. maanta waxay kaga duwan tahay sanad walba waxaa la qaataa tiim baa la qaataa. tiimka sanadkani waxa weeye biyaha iyo cimilo isbedelka. marka cimiladii wax badan baa iska bedelay waxayna saameynaysaa sidaan Soomaalidu ay biyaha u hesho guud ahaanba adduunka gaar ahaana dadka Soomaalida. xanuunka corona meel kasta ayuu gaaray wadamo badan ayuu ku sii faafaya. Soomaaliya kiisas baa laga sheegay, dalkani Kenya kiisas baa laga sheegay. marka dadka xeryaha qaxootiga ama isku raranta ku nool ma haystaan biyo ay nadaafad ugu dadaalaan. marka dadkaasoo kale qaab noocee ah ayay ku heli karaan biyo nadiif ah? dadka ku nool xeryaha qaxootiga ah ama barakacayaasha ah meel walbo ay joogaan waa dadka ugu nugul dhibaatada biyo la'aanta. tusaale ahaan magaalada Muqdisho tirakoobkii ugu dambeeyay la sheegay wuxuu ahaa 1.2 milyan oo dad oo barakacayaala oo ku nool magaalada Muqdisho. xeryaha qaxootiyada Kenya iyo wadamada jaarka ana dad fara badan oo Soomaaliya ayaa degan. biyo la'aan adag baa ku haysa dadka xeryaha degan. inta badan biyo ku filan ma helaan. 7 ilaa 8 litir ayuu qofkiiba helaa maalintii oo biyo ah oo 7 ilaa 8 litir ay ku jirto wixii uu cabbi lahaa, wixii cuntada ku karsan lahaa, wixii uu dharka ku meeran lahaa. marka biyo la'aanta dadka xeryaha qaxootiga ku jira iyo barakacayaasha aad iyo aad bay u saameynaysaa waana dadka ugu nugul xagga dhibaatada. marka biyo la'aanta laga tago nadaafadda biyaha ay helaan dadka xeryaha qaxootiga ku jiro ama barakacayaasha ah nadaafadooda lafteeda lama hubo maxaa yeelay ama roobkay ka cabaan ama biyo aan la nadiifinin ayaa soo gaara. marka aad iyo aad bay u dhibaysaa dadka Soomaalida ah ee xeryaha qaxootiga ku jira ama barakacayaashaba ah iyagoo wadankooda jooga. samiir cabdulahi jaamac aad bay u mahadsantahay. iminkana xubintii ciyaaraha. madaxii hore ee Real Madrid Lorenzo Sanz oo 76 jir ah ayaa geeriyooday kadib markii uu soo ritay cudurka coronavirus isagoo in muddo ah hosbitaal lagu dabiibayay. 2 jeer oo ay kooxda Real Madrid qaaday koobka Champions League waxaa kooxda madax u ahaa Lorenzo. wiil uu dhalay Lorenzo ayaa bartiisa ku soo qoray bartiis Twitterka aabahay waa uu geeriyooday. ciyaaryahanada inta uu kooxda Real Madrid madaxa u ahaa Lorenzo kooxda uu soo ciyaarayna waxaa ka mid ahaa Roberto Carlos, Clarence Seedorf iyo weliba David Saka. 33 jeerna waxay markaasi kooxdiisa qaaday Championska dalkaasi Spain.
guud ahaan marka xubintii ciyaaraha inta aynu ku joojino iyadoo markaasi ay qaybaheena ama idaacadaheena dambana iyadoo sidaan ka ballaaran aan kusoo qaadan doono barnaamijka ciyaaraha haatanna xilligan oo kale waxaad nooga barateen barnaamijkii baafinta waxaana si wada jir halkan nooga daadihinaya caasho saciid iyo samiira cabdulaahi jaamac